السلام عليكم وقيبتي saddexaad logarithm okay marka qaacidooyin cusub aan bilaabi doonaa haddaa haysatid lg a lagu daray lg ba a iyo ba tirada rabta noqoto waxay la mid tahay lg a lagu dhuftay ba qaacidada labaad waxaa waa lg a laga jaray lg ba waxay la mid tahay lg a loo qaybiyey ba lg a loo qaybiyey ba okay maxay naga caawin karaan sawiro niigu sheegay haddaa example-kan haysatid for example haddaa haysatid lg labo lagu daray lg saddex isku dari kartaa waa may laakiin haddaa isticmaalno tan waxaan dhihi karnaa waxay la mid tahay lg maadaama ay ku dar tahay labo lagu dhuftay saddex jawaabtu waxay noqonaya lg lix example-ka labaad waxay naga caawin kartaa ku fahansiinaa haddaa haysatid lg x lagu daray lg saddex x oo lamida afar saa ugu shaqey lahayd tan waxaa ugu shaqey lahayd sida ugu fudud waxaa isticmaalaynaa tan saa jawaab ku helno sababtay tahay labadan iskuma dari karta because intana waa x xaggana waa saddex x marka way kala duwan yihiin iskuma dari karta waxaad samayn kartaa lg waxa dhexda ku jiro x waxaa ku dhufanaya saddex x waxay la mid noqonaya markaas okay afar marka qaacidada isticmaalaya waa tana qaacidadaas isticmaalaya markaa saas dhexdeed jawaabta ku soo baxaysa waxaa waaye lg saddex x oo x square midta afar saa hore u ogeed labadan hoose imaan kartaa maadaama exponent ay tahay saddexdan hoos ma imaan karto marka waxaa dhihi karnaa haddane labo lg saddex x waxay la mid tahay afar labada gees u qaybinaya marka labada gees aa u qaybisid labo loo qaybi labo hal kabacdi waxaa haysataa lg saddex x waxay la mid tahay afar haddaa u qaybisid labo waa labo marka waxaa isticmaalaya hadda videoyaasha hore iyo qaacidada hore nii tusay waxay ahayd haddaa haysatid 10 lg a waxay la mid tahay a ama haddaa haysatid lg a oo laba b la kordhigay ba waxaa waaye ba lg a marka maxaa samaynaynaa 10 haddaa labada gees dhigtid macnaha 10 aa kor dhigtid lg 10ka way isku baxaya marka waxaa helay saddex x oo lamida 10 oo laba la kor dhigay kabacdi x kasta gooni uu istaajisid equationka caadi ah xaline x wuxuu la mid yahay 10 laba la kor dhigo 100 loo qaybiyo saddex adi 33 dhibic marka ani jawaabta tana ka dhigi okay
taasi waa mid. marka qaacidada labaad xilno haddii negative isku beddesho haddii heli lahayd lj 4x laga jaray lj 5x oo la mid ah 7 saa ugu shaqeyle. okay waxaa ognahay lg laga jaray lg ba waxay mid tahay lg loo qeybiye ba. marka anakoo qaacidadan isticmaalayno waxaa samayn karnaa lg 4x hadda inta square dhaho igaraal noqda square loo qeybiyay 5x oo lamida 7 x-kan isku baxeen waxaa haysataa markaas lj 4 loo qeybiyay 5x oo lamida 7 10 labada gees ka dhige sababtay tahay 4 loo qeybiyay 5 hore ma imaan karto exponent macnaha korka ma saarno x korka ma saarno. marka waxaa dheh markaas lg 10 way isku baxayaan waxaa kuu soo helaa 4 loo qeybiyay 5x oo lamida 10 oo la kala dhigo 7. jawaabta waa maxay markaas? jawaabta waxaa waayay 5 labada gees ku dhufane 5 labada gees ku dhufane waa 4x oo lamida 5 lagu dhufto 10 oo 7 la kala dhigo. okay kabacdina 4 u qaybinaya labada gees 4 loo qeybiyo 1 x waxay la mid tahay 5 loo qeybiyo 4 5 loo qeybiyo 4 5 loo qeybiyo 4 yaraal noqda cilad yara haysato